Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Cashirkan waxaan ku baranaynaa antibiotics gaar ahaan beta lactams. Beta lactams antibiotic oo waxaa ka mid ah sida penicillin oo kale, cephalosporins iyo wixii la mid ah. So marka cashirkan wuxuu ka koobnaan doonaa chemistry oo beta lactams ay leeyihiin. Haddaadan chemistry iyo waxaas isku fiicneen waa iskaga boodi kartaa. Examples oo ka mid yihiin beta lactams, mechanism of action, habka u shaqeyso daawadan antibiotic ah, mechanism of resistance, qaabka oo bacteriyada oo adduunka antibiotic adduunyada laga isticmaalo wuxuu noqonayaa hadii useless aan waxba taraynin. Sababta keenaysa resistance-ga macnaa in bacteriyadii uusan karin antibiotic. qaybta kale waxay tahay indications waxaa loo isticmaalo iyo side effectska ay leedahay iyo daawooyinka ay la falgasho. So marka haddaanu sii gudubno chemistry of beta lactams. Beta lactams waxa waaye ring oo ka kooban carbonyl group iyo nitrogen ama amide group. So wuxuu ka kooban yahay afar membered cyclical amide. wuxuuna ka kooban yahay markii penicillin u imaan haddii kan hoose aa fiirisid shape-ka hoose beta lactam ring oo ka kooban carbonylka iyo amide groupka iyo ringan kale oo asana shanta ka kooban shanta qayb. So marka structure-kan core structure wuxuu yahay penicillin. qaybta functional group oo R-ka ah ama acyl groupka oo ah the alkyl group iyo the carbonyl oo ila socda oo aminooda la xiriirsan iyo carboxylic acid kan hoos oo carbonka oo labada bond hydrogen oxygen kala leh iyo oxygenka iyo hydrogenka. So marka labadaas functional group qaybtan R-ka oo acyl groupka matasha iyo qaybta carboxylic acid ka matasha penicillinyaasha difference u dhaxeeya ayay ka mas'uul yihiin. kuwa qaar waxay aad ugu milmaan biyaha, kuwa qaar ma ku milmaan, taas oo keenaysa in wax badan oo jirka uu absorption ku sameyn karo ama reactivity oo bacteriyada in oo broad spectrum oo gram positive gram negative labadaba oo uu burburiyo ama in uu narrow spectrum yahay oo bacteriyada qaar yar in uu burburin karo oo kaliya. So markaasaan arkayno ringan structure-kiisa waxa waaye very stressed, macnaha wuxuu ku jiraa culays badan ayaa saaran. wuxuu jecel yahay inuu kala furmo oo reaction uu sameeyo. taas waxay keenaysaa marka beta lactam ring in hydrolysis ama nucleophilic group ay soo weeraraan oo ringiga uu furmo. haddii ringigan uu furmo oo asaaska u ahaa marka beta lactam antibiotics useless ayuu noqonayaa, taasoo keenaysa bacteriyada qaar inay soo saarto enzymes oo loo yaqaano beta lactamase iyo penicillinase resistant enzymes. waxaasoo dhan waxay keenaan in ay la falgalaan the carbonyl group oo ay furaan the beta lactam ring, kaasoo ka dhigaysa daawadii mid useless ah. So marka enzyme waxaa jiro oo bacteriyada ay u isticmaasho in cell wallka ay ku dhisto oo loo yaqaano transpeptidase ama protein binding protein. taasina waxay la falgashaa beta lactam ring, laakiin markay la falgasho inactive ayay ka dhigtaa, taasoo keenaysa bacteriyadii inay dhimato. laakiin macnaha faa'iidana way leedahay oo bacteriyada enzymekeed oo transpeptidase ah ay joojiso haddii ay la falgasho protein binding proteins. si la mid ah bacteriyada qaar oo soo saarta enzymekan loo yaqaano beta lactamase oo ka dhigaysa in bacteriyadii ay kari weyso antibioticna waxay la falgashaa ringigan ayadoo furto oo ka dhigto useless. So marka haddaan hor usii socon macnaha muhiimadda waxay tahay inaad fahamtid in amide groupkaas oo ringigan oo beta lactamka loo yaqaano inuu core structure yahay, gaar ahaan penicillinta uu yahay 5 member iyo 4 member oo fuse isku ah oona very reactive ah, taasoo keenaysa chemistry ama stereochemistry-geeda sababtoo ah the amide group waxaa resonance ku sameyn lahaa markii uu furan yahay the carbonyl group, laakiin ringan stress badanaa saaran resonance ma ku sameyn karto. So haddii interest ku tahay the deep chemistry of amides iyo ringiga ayaan kugula talinaya inaad sii raacdid. So marka hadaan hore usii gudubno example haddaan fiirino kuwa u horeysa oo ah penicillins oo ka mid yihiin amoxicillin, ampicillin, benzyl penicillin iyo waxa la mid ah. markaan hore usoo sheegnay structure-kood waxaa waaye beta lactam ring oo ku xiriirsan oo fuse ku ah
5 membered ring oo sulfur ay ku dhex jirto. qaybta kale waxaa waaye cephalosporins, waxaa jiro first generation cephalosporin, second generation, third generation, fourth generation oo sanooyin kala duwan soo baxay oo activity-goodna uu ka kala sareeyo, oo kuwa qaar gram positive gram negative, kuwa qaar oo pseudomonas la falgalo oo bacteriyada oo resistantga ah. si lamid ah waxaa kamid ah carbapenems oo ay kamid yihiin ertapenem, imipenem, meropenem, ayagana waa beta-lactam antibiotics. waxaa kaloo lamid ah antibacterialkan loo yaqaano Aztreonam oo ah halka kaliya ee license-ka ah wadankan Ingiriiska ma oga wadamada kale. Monobactamka kaliya Ingiriiska laga isticmaalo waxaa waaye Aztreonam. asana structure-kiisa waxaa waaye beta-lactam sa arkaysid, laakiin ma lahan ringi kale oo fuse ku ah. haddaa fiirsid cephalosporinka hadda waa 6 member ring oo fuse ku ah beta-lactam ring oo 4 member ahaa. haddaa fiirsid kan ampicillinka penicillinka aan dhehe ugu horeeyana waa beta-lactam ring oo fuse ku ah 5 membered ring. so marka difference yaryar ayaa udhexeeyo oo functional group oo acyl groupka oo haddaa fiirsid amoxicillin hadda acyl groupkiisa waxaa ku jiro benzene ring. haddaa fiirsid cephalosporinka asana waxaa waaye 5 membered heterocyclic ring. so sa arkays marka waa example waa joojin kartaa si fiican sa ugu aragtid. so marka mechanism of action oo beta-lactams wuxuu yahay saan hore usoo sheegnay. bacteriadan oo gaar ahaan gram positive-ka waxay leedahay wax loo yaqaano peptidoglycan oo ku yaalo cell wall-ka. so cell wall-ka muhiim ayuu u yahay si bacterialkii gudihiisa iyo banaankiisa waxyaalaha kala jira uu u ilaaliyo, waxyaalaha u baahan yahay bas uu gudaha usoo galo. laakiin bini aadamka ma lahan cell wall. so marka selective toxicity si waxay doorataa bacteriyada inay si gaar ah u disho celleska ama unugyada biniaadamkan uusan waxba gaarin. so marka cell wall-ka waxaa ku dhisan sida derbiga oo kale moleculeskan oo saan isku dul saaran, lipid bilayer oo cytoplasm membrane ah, kadib korkiisa waxaa ah cell wall-ka. so marka haddaan fiirino waxaa waaye amino acids alanine iyo lysine iyo waxaa ku dhegsan sugar oo loo yaqaano NAM ama NAG, kaasoo u taagan N-acetylglucosamine and N-acetylmuramate. so labadaas sugar ayaa waxay sameeyaan linkingaasna waxaa sameyso enzyme-kana loo yaqaano transpeptidase. so beta-lactam antibiotics waxay marka similar la tahay labada meel oo cross-linking uu ku dhacayo ayagoo marka inhibition ama block ku sameynayo enzymeka marka la blockgareeyo taas waxay keenaysaa in uu dhismi waayo darbigii ama meeshii banaaneed. seeshaan arkaysid cross-linkingan oo NAG iyo NAM iyo peptideyaash waxaa isku dhajiya enzymekaas aan soo sheegnay, waxaa blockgareeya marka enzymekan oo transpeptidase ama penicillin protein penicillin binding protein loo yaqaano. so marka inactive ayay ka dhigtaa. saan usoo sheegnay marka haddii la blockgareeyo dhismaha cell wall-ka oo bacteriyada, taas waxay keentaa bacteriyadii waxay gudaha ku jira iyo waxay banaanka ku jiro in controlki uu ka lumo oo bacteriyadii cell wall-kii uu burburo, cell membrane-ka uu banaanka usoo baxo oo bacteriyadii ay dhimato. taasoo marka ka dhigaysa beta-lactam antibiotics-yada ugu fiican uguna safesan, sababtoo ah cell wall oo aan lahayn biniaadamka ayay target garaysaa, way baabi'isaa bacteriyadina meeshay ku dhimanaya ayadoon waxba gaarsiin unugyada biniaadamka ama meelaha kale ee jirka biniaadamka. daawooyin badan waxay leeyihiin side effect badan, laakiin profile fiican ay leeyihiin beta-lactam antibiotics, sababtoo ah saa hore usoo sheegnay waa selective toxicity, waa sumeyn oo gaar ay u sumeynayso bacteriyada kaligeeda. so marka waxaan dhahnay bacteriyada hadda waxay samaysatay in uusan karin antibiotic. sababtan waxaa keenaysa in enzymekan oo transpeptidase loo yaqaano bacteriyada noocyo kala duwan ay soo saarto, macnaa hal enzyme ah noocyo kala duwan ayaa jiro. sometimes change wuxuu ka dhacaa DNA-geeda, taasoo keenta inuu isbedelo oo antibioticii marka oo binding uu ku sameyn waayo enzymekii, taasoo suurtagelinaysa bacteriyadii inay isa sii badiso oo sii faafto. waxaa kaloo jira mechanism of resistance oo keenaysa in
plasmids oo ah protein oo ring oo kale ah oo bacteriada isdhaafsato. So bacteriada mid ayaa noqonaysa resistance. So marka genetic materialkii oo resistancega siinayay oo enzymekan uu ku bedelayay ayaa isku gudbinayaan. waxaa kaloo jira gene mutation change ku dhaca DNA-ga oo chance ah, macnaha by pure chance DNA waxa uu dhacaya change hal amino acid ayaa ka tirmaysa ama kusoo darmaysa ama ka tirmaysa, taasoo u suurta gelinaysa beta-lactam antibioticska inaysan enzyme-ka binding ku sameyn karin, kaasoo keenaysa marka indifference uu noqdo oo u suurta gelinaysa bacteriada inay noolaato. si la mid ahna waxaan dhahnay polymorphism waa transcriptase-ka asaga kala duwan oo bacterial nooc walba ay soo saarto. hataa u fiirsid hadda antibacterialka waxaa arkaysaa antibacterial oo cephalosporinka ay dilayso laakiin amoxicillin usan waxba ka tarin. sababtan waxaa keenayso polymorphism, macnaha isbedel yar oo u dhexeeya enzyme-kan oo transcriptase-ka ah. soo marka functional groupska oo kala saaran beta-lactamska waxay u suurtageliyaa kuwa qaarna in ay target gareeyaan nooc ka mid ah bacteriyada, kuwa qaarna aysan waxba ka tarin. so marka beta-lactamka saan hor usoo sheegay, marka beta-lactamase enzymeska oo soo saaro bacteria oo resistancega wuxuu u suurtageliyaa in ay la falgasho muxuu ahaa beta-lactam ringiga, taasoo burburisa marka ama in uu isbedelo ay noqonaysa transcriptase-kii oo nooc la soo saaro oo waxba uusan binding ku sameyn karin, ama in beta-lactamase enzyme uu soo saaro oo burburiya beta-lactam ringigii oo ka dhiga mid oo useless ah. so marka waxyaala loo isticmaalo waxaa ka mid ah bacteriadan oo streptococcal, staphylococcal, meningococcal, pneumonia, meningitis, cellulitis, endocarditis, respiratory tract infections. waxaa loo isticmaalaa urinary tract infectionada jirka baniaadamka ku dhaca oo badan oo gram positive oo u badan yihiin iyo qaar gram negative ka mid ah ayaa loo isticmaalaa. marka side effect ugu weyn oo ay leeyihiin daawooyinkan oo penicillinka iyo ama beta-lactamka guud ahaan sida cephalosporinka iyo monobactamka waxaa ka mid ah hypersensitivity, kaasoo ah allergic reaction oo halis ah, anaphylaxis reaction loo yaqaano. kaas wuxuu keenaa qofka inuu bararo, neefta ay ku xiranto, carabkiisa uu bararo, dhuuntiisa ay xiranto oo degdeg uu ku dhinto haddii aan degdeg loogu durin cirbada epinephrine ama uusan helin caafimaad degdeg ah oo dhuuntiisa qofka lagu furo oo ku neefsan karo. tan kale side effect kale wuxuu yahay qofkii inuu ku dhaco shuban oo xad dhaaf ah oo uu qaado C. difficile infection. wuxuu iskaga nool yahay caloosha ama dhacrada asoon wax problem keenaynin, laakiin haddii isticmaashid broad spectrum oo antibiotic oo sida amoxicillin oo kale ah ama cephalosporins, waxay keenaysaa in ay disho bacteriadii oo usefulka, bacteriada qaar oo kugu nool calooshaada faa'iido badan ay leedahay. waxay ka ilaalisaa infection, metabolism ay sameysaa, taasoo kuu keenaysa in caafimaad aad ka heshid. laakiin haddii ay disho broad spectrum antibiotics kan oo isticmaashid, taas waxay keenaysaa C. difficile infection caloosha in oo suurta gasho inuu ku dhaco, kaasoo keena shuban xad dhaaf ah oo qofkii u baahanaa cabsaan in la seexiyo. mararka qaarna haddii dose aad u weyn isticmaashidna waxaa laga yaabaa neurotoxicity, macnaha maskaxda in oo sun ay ku sumowdo, taasoo keenaysa daawooyinkan. soo marka saan soo sheegnay, marka waxay noqonaysaa qofka inuu bararo oo dhuuntiisa ay xiranto, wejigiisa asaga dhan allergic reaction immediate uu qaado. sa arkaysiin hadda wejigayaa bararaya, dhuuntii, indhihii. qof marka haddii oo mar allergic reaction isku arko asoo qaadanaya beta-lactam antibiotic oo sida amoxicillin ama ampicillin ama ceftriaxone waxay la mid ah, waa in mar dambe uusan qaadanin daawo ay ku jirto beta-lactam antibiotic, ama cisbitaal oo diyaar ay ku yihiin maadooyin resuscitation oo qofka loogu sameyn karo inuu ku qaato mid oo different oo dhakhaatiirta ay ku baroobeeyaan. so marka waxyaalaha kale muhiimka waxay tahay qaar ka mid ah beta-lactamsku waa broad spectrum sida amoxicillin oo kale ama cephalosporins ama carbapenems. kuwa qaar waa narrow spectrum sida phenoxymethylpenicillin oo kale oo ciyaalka badana ay u qaataan otitis media ama otitis externa, macnaha waxay target gareeyaan qaar yar oo ka mid ah bacteriyada, sababtoo ah mala falgeli karaan gram negative bacteria, waxay target gareeyaan oo kaliya gram positive bacteria, taasoo keenaysa marka inaysan wax badan tarin.
waxaa kaloo jira consideration absorptionka kuwa qaar IV bas ayaa lagu qaadan karaa hadda penicillin G oo kale afka ma lagu qaadan kara sababtoo ah caloosha acidka ku jira ayaa burburiya si lamid ah amoxicillin absorptionkiisa aad ayuu ugu fiican yahay ampicillin absorptionkiisa aad iyo aad ayuu u yaryahay sababtoo ah caloosha acidkiisa ayaa yareeya waxaa kaloo muhiim ah in lagu xisaabtamo resistance haddii jirto haddii qofka uu qaadanayo daawo oona la og yahay haddii lagu sameeyo culture infectionka ku dhacay oo la ogaado in uu qabo daawo resistance ah inaan la siinin daawadaas oo mid kale la siiyo oo still sensitive uu ku yahay tan kale muhiimka ay tahay waxay tahay dad badan ayaa waxay sheegtaan in oo penicillin ay ku yihiin hypersensitive laakiin dadka oo true hypersensitivity oo lagu arko aad iyo aad ay u yaryihiin waa less than 0.1% laakiin waa in si run ah qofka loo baaraa in hypersensitivitygaas uu yahay wax run ah oo anaphylaxis reaction ah ama allergic reaction oo yar oo qofka oo fiiq waxyaalo oo yar oo kaga soo baxa jirkiisa inuu yahay ama qofka iska sheeganayo sababtoo ah waa antibiotic aad iyo aad muhiim u ah oo dadka bini'aadamka wax badan u taro soo qof walba dhaho aniga penicillin ma qaadan karin hypersensitivity ku ahay waxaa laga yaabaa antibiotic kale oo daawadaas jiradaas daaweyn karta inuusan jirin oo lagaga fiican yahay oo daawo safe qofkii u heli lahaa uu ku waayo waxyaalo allergic uu ku yahay inuu asaga iska sheegto dhibka kale oo jira ugu weyn wuxuu yahay oo daawooyinkan la xiriira ayadoo si xataa dadka u isticmaalaan xataa suuqyada la iskaga iibsado wadamo badan oo adduunka ka mid ah oo suuqyada uu qofka uu kasoo gadan karo amoxicillin ampicillin uu cabi karo taasoo keenaysa resistance in bacteriadii ay hesho qaab ay iskaga difaacda antibioticii oo dadkii meesha ku noolaa oo dhan naftooda halis ay gasho oo dadkii ay u dhintaan infection maadaama bacteriadii oo dhan aysan kareerin antibiotic taasoo keenta qof waxaa arkaysa hargab uu haayo oo viral infection ah oo antibiotic isticmaalaya waa qalad waa inaan loo isticmaalin antibiotic viral infection oo sida hargabka ah fluga 95% to 90% hargabka waxaa keeno viral infection so dadka waa inay joojiyaan inaysan isticmaalin qofkii hadhow waxay ku noqonaysaa in antibiotic waxa u tari waayo asaga naftirkiisa ama dadkii kale uu la noolaa uu dhibaato u keeno oo resistant bacteria uu gudbiyo oo hadhoodii antibiotic uusan waxba u tarin tan kale waxay tahay excretionka mainly waxaa waaye urinka kelida ayaa sifeysa weli concentration oo clinical oo kale ah ayadoo aan la bedelin daawooyinka badanaa marka la isticmaalo beerka ayaa waxay u bedeshaa mid oo ku milmi karo biyaha si oo kelida u sifeyso laakiin beta lactams gaar ahaan penicillinta ayadoo caadi ah waxba aan laga bedelin ayay kaada raacdaa xataa markii dagaalkii labaad ee adduunyada waatii dadka askarta kaadadood laga soo sifeyn jiray kaadadood in la aruuriyo ayaa penicillinka laga soo saari jiray oo dad kale ay cabi jireen soo marka asoo chemistrygiis isbedelin ay kaadis kaliyaha sifeeyaan tan kale waxay tahay daawooyin waxaa waaye aad iyo aad safe u ah marka loo fiiriyo daawooyin kale oo side effect leh ama la falgala daawooyin badan oo interaction badan la sameeyo interactionkiisa penicillinka interaction oo competitive wuxuu kala dhexeeyaa methotrexate kaasoo very significant aan ahayn cephalosporinka waxaa kamid ayagana warfarinka in oo potentiation ay ku sameeyaan so marka relatively safe waayo daawooyinkan oo beta lactamskana oo faa-iido weyn dadka biniaadamka u keenay tan ugu weyn waxay tahay in qalbiga mar walba ku haysid haddii qof oo penicillin uu qaadanayo in hypersensitivity reaction oo halis ah qofkii uu ku dhici karo